toban ka mid ah ismari waagii ugu xumaa ee adduunka soo maray. Istaagidyadu waa dhacdooyin baan oo galaaftay nolosha dad badan sannadihii la soo dhaafay, inta badan xilliyada shirarka waaweyn ee dadweynaha. Warbixin dhowaan ay soo saartay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa iftiimisay musiibadii ka dhacday goobta lagu magacaabo Maha Kumbh Mela ee dalka Hindiya, halkaas oo ugu yaraan 7 qof ay ku dhinteen, ku dhowaad 10 kalena ay ku dhaawacmeen isbuurasho, iyadoo malaayiin qof ay isugu soo baxeen musiibo barakaysa. Dhacdadan naxdinta leh waxay u adeegtaa sidii xusuusin ah sida ay u noqon karaan dhacdooyinka ciriiriga ah ee khatarta ah. Nasiib darrose maaha kiis gooni ah. Istaagidyo ayaa ka dhacay xaflado kala duwan, munaasabado isboorti iyo kulanno kale oo waaweyn oo adduunka ah. Hoosta waxaan ku eegi doonaa 10 ka mid ah ismari waagii ugu xumaa ee soo mara taariikhda, halkaasoo nafo lagu waayey daqiiqado argagax iyo fowdo ah. Xusuusin liiskan waxaa laga soo ururiyey xogta ay bixiyeen ilo warbaahineed oo online ah oo sumcad leh. Musiibo isboorti, Hillsborough musiibo, 1989. Abriil 1989, garoonka Hillsborough ee Sheffield, England ayaa goobjoog ka ahaa mid ka mid ah masiibadii ugu dhimashada badnayd ee soo marta taariikhda ciyaaraha Ingiriiska. Intii lagu jiray ciyaarta semifinalka ee u dhaxaysay Liverpool iyo Nottingham Forest, jamaahiirta ayaa koray xakamaynta, taageerayaashuna waxay ku xayirmeen caqabad. Natiijadu waxay ahayd isbuurasho baan oo galaaftay nolosha 9-6, in ka badan 2-0 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Masiibadani waxay daaha ka qaaday cilladaha muhiimka ah ee maaraynta dadka waxayna keentay isbeddel weyn oo lagu sameeyey xeerarka badbaadada garoomada oo dha. Al-Muwaysam Tunnel Tragedy, 1990. Bishii Luulyo 1990kii, intii lagu jiray gudashada waajibaadka xajka ee Sacuudi Carabiya, isjiidjiid weyn ayaa ka dhacay tunnelka Al-Muwaysam oo u dhow Mak. In ka badan 400 oo xujay ah ayaa lagu dilay godka cidhiidhiga ah. Masiibadan oo dhacday maalintii Ciidul Adxaa ayaa noqotay mid aad uga yaabisay caalamka, waxaana ay soo bandhigtay khatarta ay leedahay in dadku ay buux dhaafiyaan xilliyada cibaadada. Jamarat Bridge musiibo, 2004. Sannadkii 2004tii, isjiidjiid ayaa ka dhacay buundada Jamarat, halkaas oo xujaajtu ay ku gudan jireen dhagax tuurka shaydaanka taasoo qayb ka ah xajka. In ka badan 200 qof ayaa naftooda ku waayey dhacdadan naxdinta leh, taas oo mar kale muujisay dhibka ay leedahay maaraynta dad badan oo badan xilliyada cibaadada diimeed. Isjiidjiidka ayaa ka dhex dhacay jawi aad u kacsan oo iyadoo xujay badan ay isku dayayeen inay sida ugu dhaqsaha badan u dhammeeyaan cibaadada. Mandar Dehi xajka macbadka, 2005. Bishii Janaayo 2005, in ka badan 300 oo qof ayaa ku dhintay isbuurasho ka dhacday xajka Hinduuga ee macbadka Mandar Dehi ee Maharashtra, Indi. Masiibadan ayaa dhacday markii uu dab ka kacay goobo wadada dhinaceeda ah, taasoo ku riixday xujayda oo markii horeba buux dhaafiyey wadooyin cidhiidhi ah oo soo gala macbadka. Jahwareerka iyo argagaxa ayaa sababay dhimasho badan, waxaana dhacdada ay dhalisay su'aalo culus oo ku saabsan xakamaynta dadka inta lagu guda jiro gudashada waajibaadka xajka. Bandhiga Tiiga Manila Stambede, 2006. Isqabqabsi naxdin leh ayaa dhacay Febraayo 4, 2006, inta lagu guda jiro duubista tooska ah ee bandhiga ciyaaraha telefishinka ee caanka ah Manila Philippines, iyadoo taageerayaashu ay ku yaaceen inay gudaha u galaan garoonka si ay u daawasho tagaan bandhiga, ayaa waxaa bilowday argagax, waxaana ku dhintay 7 qof fowdadii xigtay. Isjiidjiidku waxa uu ahaa xasuusin khatar ah oo ku lug leh dhacdooyinka waaweyn ee dadweynaha, halkaas oo badbaadada inta badan la iska indhatiro xamaasadda xilliga. Naina Dehi Temple musiibo, 2008. Agoosto 3, 2008, isjiidjiid ayaa ku dhacay macbadka Naina Dehi ee Himachal Pradesh, Indiya. Cimilada oo xumaatay iyo hoyga oo dumay awgeed, xujaajtii jidka cidhiidhiga ahayd ee macbadka u socday waxay noqdeen kuwo argagax iyo googoy. Ugu yaraan 400 qof ayaa ku dhintay fowdadii xigtay. Masiibadu waxay muujisay sida dad badan oo badan ay u nugul yihiin marka habmaamuuska badbaadada la iska indhatiro ama la waayo. Garoonka Abidjan Stambede, 2009. Ciyaartii isreebreebka koobka adduunka ee u dhaxaysay Ivory Coast iyo Malawi Mart 2-9, 2009 ayaa waxaa ka dhacay garoonka Felix Houphouët-Boigny ee Abidjan. Dadka ayaa kor u kacay ciyaarta ka hor, waxaana ku naf waayey ugu yaraan 9 qof. Dhacdadu waxay iftiimisay sida liidata loo maareeyey dadka isugu soo baxay ciyaaraha isboortiga ay u horseedi karaan cawaaqib xum. Bandhiga biyaha ee Phnom Penh, 2010. Noofambar 2010, waxa ay ahayd inay ahaato dabaaldega farxadda leh ee Cambodia wuxuu isu beddelay dhimasho. Bandhiga biyaha ee sanadlaha ah ee Phnom Penh,
waxaa lagu arkay in ka badan 3.5 qof oo naftooda ku waayey isbuurasho ka dhacday buundada dulmarta webiga Tonlesa. Buundada oo buux dhaaftay ayaa keentay argagax, buundadana waxay noqotay dabin dilaa ah. Masiibadani ayaa weli ah midii ugu darnayd ee soo marta taariikhda Cambodia, waxayna daaha ka rogtay khataraha isu imaatinada waaweyn ee dadweynaha iyada oo aan la helin tallaabooyin badbaado oo ku fila. Santa Maria Nictlub dabka iyo Stambede, 2/13. January 27, 2/13 dab ayaa ka kacay goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada Santa Maria ee dalka Brazil, waxaana dabku uu sababay isbuurasho ay dad ku dhinteen. Argagax ayaa sii fiday iyadoo dadku ay isku dayeen inay ka baxsadaan holac, balse waxaa la xiray waddooyinka laga baxo, dadka ayaana ku xayirmay. In ka badan 2-3 qof ayaa ku dhintay, oo u badnaa qiiq la nuugay ama lagu dhex burburiyey dadkii badnaa. Masiibadu waxay muujisay baahida loo qabo tillaabooyin badbaado oo wanaagsan oo ka jira goobaha lagu caweeyo, gaar ahaan marka la eego meelaha dabka laga baxo iyo xakamaynta dadka. Mina Stambede, 2/15. Isqabqabsi kale oo naxdin leh ayaa dhacay intii lagu guda jiray gudashada waajibaadka xajka ee Sebtembar-December 24, 2/15 oo ka dhacay xerada Mina ee u dhow Mak. Intii lagu guda jiray caadadii dhagax tuurka shaydaanka, in ka badan 2-3 oo qof ayaa la dilay kadib markii ay dadku kor u kaceen. Tani waa ismari waagii ugu dhimashada badnaa ee soo mara xajka. Waxay u adeegtay xasuusin xanuun badan oo ku saabsan baahida degdega ah ee loo qabo maaraynta dad badan oo ka wanaagsan dhacdooyinkan diimeed ee baaxadda leh.